macluumaadka RFSO oo ku saabsan xubnaha taranka haweeneyda iyo inanta. muuqaalka xubnaha taranka wuu kala duwan yahay, mid kasta kan kale ayuu ka duwan yahay. xubnaha taranka wax baa iska bedbedela kolba da'da qofka, ha ahaato muuqaalka iyo xitaa siyaabo kale. maadaama arrimaha xiriirka xubnaha taranka la leh aan laga hadlin, dadyow tiro badan ma helin fursad ay ku helaan aqoon xubnaha tarankooda ku saabsan. laakiinse wax baa arrintaas laga bedeli karaa iyadoo wada hadal iyo aqoon la adeegsanayo. qofku markuu yahay caruur, waxaa badi ahaan muuqda bishimaha xubnaha taranka ee dibadda xiga, kuwaasoo daboolaya bishimaha xubnaha taranka ee gudaha xiga. hase yeeshee, muuqaalka xubnaha taranka wax baa iska bedela markuu qofku u weynaado oo uu qaangaaro. markaas xubnaha taranka wuxuu yeelanayaa timo, bishimaha xubnaha taranka way weynaanayaan, midabkooduna sidii hore iftiin uma aha. muuqaalka bishimaha xubnaha taranka ee gudaha xiga way kala duwan yihiin. badi ahaan waxay yihiin qaab isku duuduuban markuu qofka uu kacsanayn. bishimaha xubnaha taranka waxay leeyihiin dareen wadayaal, kuwaasoo dhanqasho laga dareemo haddii la taabto. markuu qofka uu kacsan yahay, xubnaha taranka wuu soo bararaa. kintarka wuu weynaadaa, kadibna waa adkaadaa sida xubnaha taranka ragoo kale. kintarka hoostiisa waxaa ku yaala afka mariinka kaadida iyo duleelka taranka haweenka. markay haweenka ay kacsato, waxaa dheeraado oo kala baxa duleelka taranka haweenka, wuxuuna sii noqdaa qoyaan. duleelka taranka wuxuu mar kasta u baahan yahay inuu noqdo qoyaan sida gudaha afka. siidaynta taranka waa dheecaan oo caadi ahaan ku dhex jirta siilka. howshiisana waxa weeyaan nadaafin iyo inuu infekshanada ka badbaadiyo. siidaynta mar kasta way jirtaa, waxayna leedahay midab iyo qiyaas kala duwan. markuu qofku uu isnadiifinayo, waxa wanaagsan inuu biyo qandac ah ama saliid aan barfuun lahayn isaga dhaqo xubnaha dibadda oo keliya. gabdhaha ama dumarka qaarkood wax baa jinsigooda iska bedela, taasoo u sabab ah fal loo geystay. tusaale wuxuu noqon karaa in xubnaha taranka la isku tolay. xaaladaas waxaa dhib ka imaan karo siidaynta dhiigga caadada iyo kaadida ay hab caadi ahaan u soo qulqulin, taasoo xanuun keeni karto. waxaa xurumaha daryeel caafimaadka laga heli karaa caawinaada dib u furidda duleelka taranka haweenka. haddii qofka la guday ama lagu sameeyey gudniinka fircawniga, waxaa dhici karta in kuwa gudaha iyo xitaa mararka qaarkood bishimaha xubnaha taranka dibadda xiga laga jaray. xaaladaas waxaa dhici karta in gebi ahaan la jaray qaybta ugu horeysa ee kintirka iyo buryaha. iyadoo sidaasi tahay, waxaa haddana dadka badidooda raaxo dareemi karaan, maadaama inta badan ee kintirka uu gudaha jirka ku jiro, dhirirkiisuna uu yahay 10 sentimitir. gudniinka gabdhaha iyo dumarka waa mamnuuc dalka Sweden iyo dalal kale oo tiro badan. qofku markuu weynaado, jinsigiisa wax baa iska bedela. markaas waxaa badi ahaan aad u muuqda bishimaha xubnaha taranka ee gudaha. qiyaastii 50 sano markay buuxsadaan, badidooda way cisagooyaan, taasoo macnaheeda ah in caadada ay sidii hore hab joogto ah u ahayn oo ay gebi ahaan joogsata. haddii aad ka walwalsan tahay ama aad isweydiinayso arrin xiriir la leh xubnaha taranka, waxaa wada hadal la yeelan kartaa umulisadaada ama dhakhtarkaaga. haddii aad qof da'yar tahay, waxaad arrinta kala xiriiri kartaa kalkaalisada caafimaadka ee iskuulka ama rugta dhalinyarada. muuqaalka aadanaha waa kala duwan yahay, sidaasoo kale xubnaha taranka wax baa iska bedeli kara intuu qofka uu nool yahay.